Coco Films. قبيل وايد ورجلي يقدا قبيل وايد لي يقدا قبيل Caramba, يقدا قبيل وايد برشري يقدا قبيل وايد يقدا قبيل قرنبا يقدا قبيل وايد برشري يقدا قبيل وايد يقدا قبيل قرما يقدا الضعيفة مكذا يقويسي قدا ما تضع ضيعا طب انت بحيقي قدا درجذوك وهلا طولتهم النقضي يقدا قبيل قرمايتي يقدا الضعيفة مكذا يقويسي قدا ما تضع ضيعا طب انت بحيقي قدا درجذوك وهلا طولتهم النقضي يقدا قبيل قرمايتي يقدا يقدا قبيل وايد برشري يقدا قبيل وايد لي يقدا قبيل قرمايتي يقدا قبيل وايد برشري يقدا قبيل وايد لي يقدا قبيل قرما يقدا يسقطين بوشا وحتى لا ترقيا يقدا ما تقوش غادنا يغاتقيا يقدا قولي قنقل دبا إني يقدا قبيل قرما على مسارك سلطان كيسبد عبد الله وينو على مسار إنه ما أنت إنه قد كسوغن قبتنا يا إتهاي دقمة أبو كر حمد
وأنه مقالة أبوكر أحمد دقمة حرشة كترسان أكل الكشنات وحين ما تكون على مسار دونا سلطان كيسة بدأ عبد الله أو نقد دونا أما ما أنت لقب له سلطان كبرش أبوكر أحمد sidaa ugeed walaalayaal waxa la difaray amaan idin ka codsananaaba si ay hawshu inagu bilaabmato oo inuu aayadihii quraanka ha u bilaabano aynu xerbeegtida iyo tusmada Abubakar Axmed ka socota aynu kala dambeysisano ama aynu kala qodobaysano hawsha in qof waliba hadalka yareeyo halkiisa aanu ka soo kicin qof walibana waajibaadka saaran halkiisa ku garto inta laga bilaabo suldaanka beesha Abubakar Axmed ee guud iyo dabadba Somaliland iyo Ethiopia iyo dabadaha kuwa ku maqanba sidaa awgeed waxaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay ku xiltiro xilka ballaaran ee beesha Abubakar Axmed ay maanta goobta tan ugu igmatay iyada oo ay tahay maalin mucjiso leh oo ay tahay maalin khamiisa ay bishuna tahay 18 jimcana ka dambeyn doono kowsan doono xilka loo magacaabay maalin jimca nawruushkina uu soo galay maalin khamiisa iyada taa laftigeedu mucjiso ayay leedahay sidaa awgeed waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ku asturo kuna xiltiro xilka loo igmaday ee suldaanka beesha Abubakar Axmed waa xil ballaaran في سراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ربي صل يحب الحبيب وحبيب وعند الحبيبهم أعداء ربي صل kala dambeeyay sultaan samaystay inuu boqor sameeyana ilaahay baa khalqiga u jiday maanta waxaynu iskugu nimi waxaynu samaysana madax dhaqameedkii dadka Soomaalida amba islaamkaba u ahaa amba caalamkaba u ahaa sharci sultaan baynu maanta samaysanana sultaankaas xagga waxaan xagga ilaahay ka iman ma yimaadaan xagga ilaahay ka yimi sharafna cizi iyo sharafna bilaadanka u ah كاسو باشا ليلى أبوكر أحمد قوة سلطان مانتا إثيوبيا ميلا يتوغان با وين صعد وين الناس سلطان كيسه بله بالله وصلى الله وسلم على سيدنا دعية قبول لوين إلهي من دعية قبول لويدين بدي عبد الله وعن ليه سلطان سودو maanta way tahay taariikhda 8 bishii 7 ee 2019 waxaan leeyahay suldaanka waan soo dhaweynaynaa xilka iyo waajibaadka loo igmadayna ilaahay ha ku xiltiro ilaahdiida qabanqaabada ee suldaanka waday Abubakar Axmed dhamaystir waxaanu halkan ku calaamad saarnaa Abubakar Axmed suldaanka Abubakar Axmed dabad iyo gudu sudaan buu yahay Abubakar Axmed iyo ma garanaysaa dalka dabadiisa dadku xuduud sudaanku xuduud ma leh waa dalka gudihiisa iyo kilalkeenu joogno iyo dabadiisa sudaan buu yahay Abubakar Axmed waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha Abubakar Axmed suldaanka sooyaal markuu yahay abi isagoo caaqil buu ahaa abiina caaqil buu ahaa oogina talis buu ahaa waanu u garanay beesha Abubakar Axmed haddaanu nahay haddaan gudoomiyaha guddida qabanqaabada neero guddidii qabanqaabada afkeeda ku hadlayay beesha Abubakar Axmed ba waxaan u garanay inuu sudaan noqdo buuraa maanta laga bilaabo dadweynahan Abubakar Axmed ee isugu yimid goobtan noloshan sharfan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isagoo suldaanu sharaxan ayaanu ka qaaday magaalada Hargeysa waanu ka maarmi weynay inuu noo qabto waxaan aanu soo idmanay wixii buu noo qabtay 2 maalmood gudahood qaabka kayse inkastoo suldaan noqday go'aankiisa waa go'aan bir ah waan idiin sheegayaa waa go'aan adag buu leeyahay jeebkiisa waxba kuma reebo wuxuu hayo cidda ka soo horbaxdin buu u dhiibaa
ودفت النقامو انت كل نقامو سودانك عصب امان تعلم على مسار علمه سودان كيسي بلا عبد الله وانا معين يسمع لك دوتي ويدي وحان يوغا بيش إلى بكر أحمد الكفر الله إيه نان تلوي لسودي ما إلهي ولا صدري إلهي أيها صدري ونعطي سلوم من الله كيني أنا يمكن نسلوم من الله تاسا كم الخاتين إلهي دوتي بكر أحمد الكلية انتو عدي قفة سلطان لكن قفة أحنا الله ما عاقل dadka afka Soomaaliya ku hadlo dhan buu madaxiyay هذا اللي سودانك أبو بكر أحمد وين يكون مقاومة لكن أنت الصومالي يكون رسول الله سلطان لا تستطيع الصومالي اللي هذا السودان بوله كي لما هي صادين كنا بس ناسيا وقاس حدود راحة وعن كل عين إن شاء الله إن نقول كونات يا أسرح كشكل إلهينا كبوريين إلهينا كحلي إلهينا كل شيء مركب حتى أنا وباش عبد الله بكر كارنايا وعن سلام وصدريا أما الحنبليين يا أما عن ساكا دورنا وحوي سلطان كيسة بدأ عبد الله والسوري وهكذا راعينا وحوي سلطان كيسي وأنين في فرعون لما خلوا باسي راعينا وحوي كيسي وانو كدورني سفي عانو كلي يلا وانو كدورنينا وانو كما سنتاي وحانو كدورنينا تكسوب حدنا وارجينينا وحانو كلنا هاي وتدلكا يددكاغا آمين آمين ددكاغا يدلكاغا وتبيقي taasi waa qodobka labaad markaad soo raacdo sandalada arabisaaq waa 13 baad maanta ku tay معاك برسوقين على سلاح معاك عبد الله عرب معاك كوبي طبن كنا هل كانت كوبي طبن كتاي إيه بخوريو هدي واسيو سلطان با 13 baad ku toorta waxaanu leenahay 13 naasba guul ilaahay haydasiiyo caalamka kale ee hareeraha naga xiga 13 iyo 20 iyo 30 dadku uu leeyahay horta sida ummadda ay noqonayna nugna sida ummadda ayay noqonayna laakiin waxaan idinku dardaaraya waxa weeye 13 naas inay isku xidhnaataan oo meel ka wada adeegtaan oo ummadda wax u doontaan oo heshiisaan oo ninba xayar gaar u goosan baan idinku dardaaraya haddii kalaba qabiil samaysaan oo ninba yar meel u goosto magaca iyagiina waa dilaysaan doorasho dambe oo idii gelaynaana ma jirto taa ku talagala laakiin waxaan macdaha maanta ugu dambeeya waanu ku calaama saaraynaa kaliya laab baanu kugu caleema saaraynaa magaalada Abubakar Axmed baanu kugu soo dhawaynaynaa cidda kaliya aanu filayna inaad ka qayb gasho ee wax noo qabatana adiga weeyaan iyo intii kula qayra waxaanu leenahay wanaag iyo isku xig ayaanu idin rabnaa سلطان كيسي بدي وانو دورنا قلبي يمنينا بورنا دورنا سلطان كي عسلا عركة قانا هو سلطان كي عسلا عمرقي سنة راقا عركة قانا هو انتا سوانا قدو تكالي حاولي قموشي سنيني وقول بهالكهولية هدي أنا هاي باشا موسى بكر وأنا هاي باشا بكر أحمد سلطان كيسي بدوان طورا أبشرت الله ينوافج يا حضرتنا الله ينوقدو أبشرت الله ينوافج يا حضرتنا الله ينوقدو waanu kalaanu ku soo dhaweynaa suldaanka
كيس بلا عبد الله الله كي وحنفعها كيرو حلكنا الله كحلته أبوك رحمك كي دبت شوه إيه كي دبت شوه إيه كي هالكن شوه أبوك رحمه كمل سلطان أبوك رحمة بات كي أنفع الله كادو حلكنا الله بواسطه أننا ماشي إلهي أترى نقصي أجل إلهي نقصي تب إلهي نقراني كش إيا الله تإيا على شأنك أجد عينون نقول دورني الله هو أنفع كي أمد أنفع الله كادو على الله إنه أكبر أنا وحنا ناي بيش بكر أحمد عاشبان وأنا يرجي مدرسة وها وقال تعب كان دهيبان dadku dhammaantii cuqaal sulaadiin haween madax dhammaantood way islaamiyeen waa la duceeyey ducada aynu ducaynana allah inugu anfaco suldaankana waxaan leenahay suldaankii dadka isku wadaan kala wadin allaha kaa dhigo kii isku wadaayaan kala wadin allaha kaa dhigo kii lagu guulaysta allaha kaa dhigo madashan qaaligaa mudane iyo marwo cid kastoo ka soo qayb gashay salaanta islaamka ayaa muslimiina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa runoo dee odayaasha tusmo ayaa loo sheegayaa anigu waxaan ka tirsanaya odayaasha haashin ee abubakar axmed ee xafladda qaaligaa ee qiimaha leh lagu aaminay ummadda ilaahay iskugu timi ku soo dhoweeyey suldaan kayse bada cabdi waa suldaan abubakar axmed waa suldaan aan markii warkiisuna soo gaadhay isagoo noo imanin ayaa abubakar axmed markaanu nahay waxaanu rag iyo dumar markii waa la isqiimeeyaa abubakar axmed waa arab wuu ugu sarreeyaa ummadaha kalena soodin buu la leeyahay ummadaha kale ee rujaarka lahay dhib iyo dheefba nin isku keen xidhi kara hadday dawlad tahay hadday ummad kaloo aynu darsnaay tahay kayse bada cabdille waxaanu u dooranay ninkii isku xidhi lahaa ummaddaynu yahay bede suldaan bede waxaan u malanayaa nin samada laga doortay oo carruurta dacwadiba ku hadaaqaysa waxaan ka yaabayaa in xoolihii maanta laga soo yaaco meel dhowna maaha in laga soo yaacaan ka yaabaya markii warkaa naloo sheegay waxaan leeyahay samadaa lagaa doortay kii wax anfaca ee ummaddiisa anfaca noqo kaniisadooda waa nin firfircoon waxaana filayaa in ummadda isku xuduudin doonana waan filayaa nin aabbihii baan aqaanayo ilaa xayla salaasa ilaa dhargigii dhowr shuur baan wada gallo sidii aabbihii un baan ka filayaa caawodayga iyo raganimada un baan ka filayaa ninkada aabbihii taqaanay waxba kaagama dhino isagana siduun baan ka filayaa insha allah ilaahay idankiisa waxaan leeyahay soo dhawow suldaan kayte soo dhawow ummaddaadana way ku anfici sidii ninkii hore soo dhawow baan ku leeyahay waftigana soo socdana haloo diyaargarmana haloo banneeyaan leeyahay weli sacab iyo mashxarada lagu soo dhoweeyo waa beeshii dacwalay waa beeshii keliya u harsanayd ee ilaa abubakar axmed ee laga sugayo dhulka daaqeynta ilaa saaka way soo socdeen
inta kadib haddaanu nahay cuqaasha beesha Abubakar Axmed ama cuqaasha Arabba hargeysa in badan baanu kaga soo baaraan degnay hawdna waa lagaga baaraan degay in Kayse Bada Cabdulle loo doorto suldaanka beesha Abubakar Axmed waana loo midaysan yahay waxay jaasada koobaad soo bixiyay suldaankeena guud ee suldaanka beelaha Arab Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax ayaa soo ijaaseeyay intaa kadib kolay dhaqanka madaxda dhaqanka la iskama doortee wax loo doortaa jirta madaxda dhaqanka waxaa lagu doortaa akhlaaq iyo diin iyo haybad iyo muunad iyo aftahanimo iyo karti iyo dulqaad iyo daacadnimo iyo ammaano arrimo fara badan baa loo doortaa madaxda dhaqanka intaba Kayse Bada Cabdulle uu ku sifaysan yahay waxaanu wada ogsoonahay Sultaan Kayse Bada Cabdulle inuu ka soo jeedo saldanad facweyn iyo madax dhaqameed soo jireena waa jiif caaqil aabihii Bada Cabdulle jiif caaqil buu ahaa waxa weeyaan waa madal dhaqan waa meel dhaqan ku abtirsata waana sida mudnaanta iyo loogu soo xulay inuu noqdo maadaama uu ka soo jeedo qoys madax dhaqameed ah oo ku suntan astaanta dhaqanka iyo halkarnimada inuu noqdo waa sida loogu doortay weeyaan maan akhyaarta sharafta badan rag iyo dumar bale dhalinyaro waayeel cuqaal iyo sandalad intaba salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marlabaad munaasabadda qiimaha badan ee aynu maanta joogno ammaan wixii ay mudnayd iyo hadal macnaha munaasiba wixii lagaga sheekayn lahaaba raggii halkan ka hadlay ayaa dhameeyey wixii kale anigu aan ka daba keenaa waa waxaan filayaa aan sii badnayn marka hore waxaan baraarujin lahaa dhammaan dad islaama oo walaalaa baynu nahay dhammaanteen ilaahay aan ka baqano marka hore marka labaad nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi aynu ku wada salino sida horeba loo sheegay waxaan ka tirsanahay madax dhaqameedka beesha Abubakar Axmed gaar ahaan beesha Muuse Abubakar sidaa horeba loo sheegay waxaanu hambalyeynaynaayoo si niyadsamaan nooga soo qaaday suldaanka maanta halkan lagu caleema saarayo inaanu xubinta koobaad ee hambalyeysay aanu nahay iminkana wuu naga mudan yahay waana suldaanka beesha Abubakar Axmed intaa dabadeed waxaan filayaa waqtigu waa kooban yahay markuu warkaagu ay soo gaadhay gacaliyow warbayse soo ganay sidii ged xaraara qaba warbayse soo dhigay sidii dalkuyoonkoday warbayse soo ganay sidii la yaro curdina walaal waan ku duceeye dabka ha jiro alayla waan ku duceeye dabka ha jiro dad iyo xoolaba sidii dabina oo farxaan dad iyo xoolaba sidii dareemada oo ballaadh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaanka cusub aynu maanta ku boqorayno ee magaalada Abubakar Axmed Suldaan Kayse Bada Cabdulle waxaan leeyahay soo dhawow waanu ku soo dhawaynaynaa waanu ku ducaynaynaa run ahaantii salaadiinta Somaliland runtii markaynu sheegno salaadiinta Somaliland badankeedu inkastoo shaqeeyaan haddana waxaynu arkaynaa maanta shacab badan baa halkan ku taagan ka soo qayb galay caleemasaarkaaga ka yimi xoolahoodii
shaqooyinkoodii ka yimi magaalooyin fogfog ka kala yimi intaasoo dhan waxay doonayaan inaad wax u qabato marka aad xilka qabato ayay doonayaan suldaan ha noqonin inta salaadiin badan intan ku arkay ha noqonin kii u shaqeeya haweenka halkan maanta jooga iyo dhallinyarada halkaa fadhiya kii u shaqeeya noqo kii ka shaqaysta ha noqonin kolley madashu waa madal dhaqan weeyaan kolley madasha dhaqankuna waxay leedahay language gooniya bay leedahay oo lagu wada hadlo luqad gooniya oo lagu wada hadlay ku wada hadashaan bay ay leedahay wuxuu baan anigu leeyahay suldaan kayse bada maanta ducun buu inooga baahan yahay inaynu ducayno ayuu inooga baahan yahay ilaahay xilka uu maanta uu qaadi doono xilka maanta uu qaaday in ilaahay uu ku asturo inaynu ugu wada ducayno dhammaanteen haddaynu guriga joogno iyo haddaynu halkan joognaba weeyaan waxaan kale kula dardaarmayaa siduu odaygu inoo sheegay wuxuu sheegay baan maranaya 11 suldaan baa ka horreeyey mise 13 isaga ku 13 waxaan dee dhammaantiin kaa sugaynaa kii midayn lahaa inaad aad noqoto ee isu keeni lahaa inaad ilaahay kaa dhigo ayaanu doonaynaa mar labaad yeesu tahay nebi yuusuf markii uu riyooday ee waabihii la hadlay oo isla nebi ahaa wuxuu ku yidhi غابتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين بوري أبا وحال كل يوم بوري كل يوم حجبون ضيح أي على هذا ويسجون يبوري أبا وحكوري ريالها السجن يا لغاوي كبروا علوم الدولاري قد يضع سواتي سببتي نبي يوسف يوم الذي عيل كردان سلطانك هالكن فرديه كيسا بدا عبد الله حسام مري امتحانات وعدك اولن ادق يكون كسبخي كرو انبياء او كليا يا لا امتحانا انبياء iyo madax dhaqameedka ayaa imtixaanka la mariyaa qofka la risaalad ilaahiyna oo ma waxaan ku nabi kasta uu imtixaanay imtixaan baa jiray waa lagu soo imtixaanay kaysa bada cabdullah waxa doonaysa dadka ay wax tarto intiisa sheegay سلطانكي بس بكر أحمد كهاري مينه وما ببحناه إن دقاتي وأنا جوا حكم شقي كل شيء أيا أمر بكر أحمد يقول له علوم سو دقاتي وتاريخ كروي كنسون كفلني وكبل على طول حتى جت ماك سلطانكي بكر أحمد مرتبلها هلك تاجن تم إياه مركي سلطانكي نقول سلطان محمد سلطان فارح لأن حارستنا كورا بيوم وبنتي waxaa ka dambeeyay intaas oo suldaan baa ka dambeeyay maanta suldaan Umar Sultaan Maxamed Saddeed dibadayo 13 suldaan baa la maraya caab maaha bini aadmigu markastoo ay taladiisa booto taladiisa way filaysaa waxaan kugu dardaarmaya oo aad kugu adkeynaya madax dhaqameedka baasa mid kastoo ka mid ah inaad u ahaato maadaama ninkii ugu dambeeyay la caleema saaray tahay gacan yare ixtiraam u hayo mid kasta la shaqeynaya maadaama mas'uuliyadda iyo martabada dhaqanka ay soo horeeyay ma sha Allah waxa ila dardaarana oo hadal ku soo koobaya ku soo gabagabeynaya number 13 ayadan soo soo qaadanay waxaan u soo qaadanaa marka alfabetiga la eego m bay ku beegmaysaa number 13 ku imna qolada gaalada waxay tahay waa la number laakiin la number ma huwa la number waxa ku beegmaya magaciisa Maxamed ba ku beegmaya m number 13 ku qolada Nisbadeen bulshada waxa kala turkiya igada dadka qoysigooda imaan turkiya igada dulmigan galan dibka inmaye igada qabil qarama itiqi igada igada qabil way dabar jiray igada qabil way duleeyay igada qabil qarama itiqi igada
rag iyo dumar habliyo inamo carruur iyo ciroole marti sharafta kale faraha badan leh ee bariya galbeed iyo koonfur iyo waqooyi bay isaga timid caleemasaarka xafladda suldaan kayse bede cabdulle dhammaantiin walaal waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta islaamka ka bacdi si gaaray farxad iigu tahay maanta in saaxiibkay suldaan kayse bede cabdulle oo aan wax fara badan oo haddii dee dadka ilaahay muusimin faraha bini'aadanka dee qof walba siduu ka dhigo waxbuu ku fiiraysan yahay madax dhaqameednimadu wuxuu ku soo tarbiyadoobin ku soo barbaaray bay ahaydoo dhaqan buu ku abtirsanayaa caaqil bede cabdulle allaha u naxariistee dee taariikhdiisa waa odayaashii goobjoog oo ahaayee shirarka ay wada galeen diiri caabiye ka mid ahaayeen sheegeen inuu aabbihii halkiisii dhigu baradhaafiyaba waan filayaa oo ku kalsoonay kayse bede insha allahu tacaala wuu samaysan yahay waanuu tababaran yahay dadka qaarkood oo kale yacnihii suldaankeennu berdhaweytoole wuxuu gaadhay caasimadda waddanka koonfurta ee soomaaliya joogu muddo yaroo kooban joogay muddadaa yaree koobanuu joogay reer soomaali weyn oo dhan iyo somalilan guud ahaan isaaq iyo daarooba reer somalilan dadka ku abtirsadaa reer aan uga mahad celinaynin oo kalsoonidii dhiiranaantu muujiyay iyada oo moorayaantii reer koonfureed reer xamarka oo guryihii dee soomaali weyn oo dhan ee ka dhisan xamar ay xoog lagu wada haysto suldaanku waxaa ninka quraatay 17 guri muddada inuu joogay soo dhiciyey ee si dhiiranoo kalsooni ugu dooday madaxkamada hadday noqotay haddii dhaqan lala doodayaba daaro qola ah oo guryo lahaaba waxay lahaayeen oo kale weliba aragda nin kalsoonida le oo weliba ruuqooyi ka yimid oo haddana in xaqooda dhiciyo yacni waa isxilqaamka iyo aanu ku ogahaye kalsoonida badan uu leeyahay ayaa sababaysay muddo inuu kooban u joogay qaar in ka badan jooga bay qabaneen kolley jawiga wanaagsan baad ka garan karaysaa wadee madax dhaqameedka iyo madka doorashooyinka noocan oo kala dhacaan sabadaa laga doortaaye bini aadan haynaga tasarrufkaa yaree dee garab istaaga iyo kasoo qaybgalku baynu leenahay inagu laakiin ilaahay baa subxaana watacaala ka doorta samada bulshada intaa leeg baa isugu timid jawiga wanaagsan ee jiraabaad samaysaa in samada laga doortay ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa maanta dee xil culus baynu kayse saarnay la xisaabtankiisu qofka madax dhaqameed ama xilsaa loogu magacaabo uu ka culus yahay qofka iska gaarka ah oo kale xag bini aadan iyo xag ilaahayba kayse walaalayaal innaga oo u ducaynayna oo si laab furan oo niyad samaana oo kalsoonida aynu ilaahay uga baryayno ilaahay ku asturo ku garabgalo xilka culus ee loo dhibay inaynu ugu ducayno waa waxa ugu muhiimsanee maanta oo martida inooga yahay jawigeena markaad eegtid madax dhaqameed xilka loo dhibo waa xil madax dhaqameed sekretarina lagama dhigin wasiirna lagama dhigin wax kale looma dhigin waa xilalka ugu culus xil ka mid oo madax dhaqameedku waa inta cimrigiisa ka hadhay oo dhan buu boqron yahay insha allah billahi alkariim kayse dhan bay dhisi karayaan laakiin suldaan kayse maanta goobtiisa joogno inaan ku xisaabtanno walaalayaal sibaa loo sameeyay suldaan ee loo maamuuso ee loo berber istaago isagaa bay naga samaysan doona waan ogahay insha allah tacaala haddii ilaahay idhaahdo markuu hawlihiisa u dhaqaaqa haddii ilaahay laftiinoo daaye sumcadiinta waa la garab istaagaa waa la maamuusaa siyaabo badan baa loo garab istaagaa dee sanadiisa sudaanka wax badan baa lagu talagalaaye bulshahaan aanu ku talagalno aanu ku diyaargaroona insha allah haddii ilaahay idhaahdo waxaan halkan ka salaamayaa bulshooyinka beelaha abubakar axmed ee halkan igu doortay maanta aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxa aan idinku ducaynayaa 99 magaca ilaahay ayaan idinku ducaynayaa waxaan idinku ducaynayaa in ilaahay uu tawfiiqda ina waafajiyo kulligeenba waxa aan idiin ballan qaadayaa in aan idiin shaqayn doono ee aanan idinku shaqaysan doonin waxa aan idiin ballan qaadayaa in aan idin kala jeclaysan cid ku tilmaamaanin oo aanan isqoos noqonin oo aanan idin kala jeclaysan oo aan si daacada oo xilkasima ku jirto idinku shaqayn doono ayaan idiin ballan qaadaya waxaan u ducaynayaa deegaanka abubakar axmed ee laygu doortay ayaan u ducaynayaa roodiyo barwaaqo ilaahay siiyo dad iyo dunyaba ilaahay barakeeyo